abaaruhu dalkeenna way ku soo noqnoqdaan. tan iyo lixdamaadkii 10 jeer ka badan ayay abaara dhaceen. sanad walbana sanadka ka sii dambeeya waxyeeladeeda iyo saameynteeda iyo dhibteedu way sii korodhaa. sidoo kalena kumanaan qoys ayaa abaarahaas dartood dalka gudihiisa ku barakaca. sanad walbana dad Soomaaliyeed oo badan ayaa ku guryo xoolo iyo nafba waaya. waxaa sabab u ah abaaraha colaadaha oo ah in dirir laga qaadayo daaqii iyo biyihii qaybsigoodii. waxaa jirta dagaallo sakeeye iyo aargoosi sii jiray intii abaartu jirtay oo la isla sugayay in roob ku imaanayo. waxaa jirta in dadku ay u diyaarsan yihiin abaabulka colaadaha iyo dirirka in ka badan intii la rabay inay u diyaarsanaadaan kahortagga abaar. waxaa iyaduna sabab u ah qorshe xumi baa sabab u ah oo ah ku tagrifalkii khayraadkii, dhirtii oo la xaalufinayo iyadoo aan waxba la beerayn. waxaa jirta kayd la-aan baa jirta oo aan waxba la kaydsanayn dalagii laga soo jartay xilligii barwaaqada. farsamo xooyi baa jirta oo ah u diyaargarow la-aan aan loo diyaargaroobeyn waxyaalaha dhici kara, daadadka aan loo diyaargaroobeyn, abaaraha aan loo diyaargaroobeyn, waxyaalaha la midka oo dhan aan loo diyaargaroobeyn. waxaa jirta wax soo saar la-aan baa jirta, wax soo saar yari baan ka wadaa, aysan dadku aad u yaryahay wax soo saarkooda xilligii barwaaqada. waxaana looga hortegi karaa amaba lagu maareyn karaa in ay dadku wax u dhigtaan xilliga abaaraha amaba ay yeeshaan kayd iyo sidoo kale iscaawin, iskarab qabasho, isjacayl iyo iskaashi xilliga adag iyo xilliga dadku barwaaqaysan yihiinba. wax la wadaag walaalkaaga abaaruhu waxyeeleeyeen.